السلام عليكم ورحمة الله دمان ولا Soomaaliyeed meel ka dunida ka joogtaan waxaad leeyahay ku soo dhawaada company-geena Opulence Global aan maanta inoo sharxayo anigoo magacayga la yiraahdo Ifraax Saciid Xasan oo ku sugan magaalada Ottawa Canada company-gaana waxaan ku soo biiray muddo hadda laga joogo 5 sano markaan soo galayna waxaan ahaa shaqaale dawladda Canada u shaqeynaaye 2 sano gudahood waxaan gaaray heer aan laba jibaar sameeyay dhaqaalihii aan ka sameeyay shaqada marka shaqadii waan ka fariistay haddana muddo almost 2 sano iyo bar 3 sano ku sii socdaa waxaan haystaa waxa la yiraahdo financial freedom xorriyad dhaqaale meel kasta dunida anoo joogo ayaan haddana ka ganacsanayaa soo maanta waxaan idin la jeclaysanaa idin la wadaago barnaamijkeena sidee adigana saas oo kale gurigaaga adoo joogo aad uga faa'iideysan kartaa fursadan qaaliga ah soo adduunka saad ogtihiin maanta wuxuu ku jiraa marxalad yacni ka duwan wixii aan naqaan wuxuu isugu aruuray wax walba stay at home economy dhaqaalaha guri jooga maxay ka dhigan tahay iskuulkii maanta waxa laga dhiganayaa online-ki shaqadii waa online-ki shopping-ki waa online-ki ilaa iyo madadaaladii waa online-ki wada hadalkii iyo wada xiriirkii wax kasta waa online soo taa maxay ka dhigan tahay wax walba inay si toos online u galeen imise qof marka hoos waa igu soo qori kartaan imise qof ayaa taqaanaa oo markii uu dhacay covid-19 2020 ee ku dhacdo shaqo la'aan sicir barar kulligeen right natural disasters duufaan iyo roob iyo waxyaabahaas caafimaadka inuu hoos galay lockdown hadda China waxa lockdown ay ku jiraan maxaa kale midaan badankeen waa ka aamusannahay laakiin dadka ku baraarugsan 5 sano ilaa 10 sano soo socota haduu Ilaahayno shaqooyinka dhan waxa la wareegayo wax loo bixiyo artificial intelligence oo ah mashiino yes waxa sanayro markaan joogo bar yar la kulmay qol waxay ka shaqeysaa xafiis qof lawyer la shaqeysaa waxay tahay warqadaha aan buuxiyo waxaana lagu bishaaray dhowr sano kadib inuu mashiin bedelayo yes maqaaxiyaal badan hadda markaa tagtid dadkii maqaaxida dadku wax ku keenayo ma jiro anymore mashiina ku keenayo soo si toos dadkii xataa professionalka ahaa shaqadooda ayaa qiiqiil ku jirta subhanallah maxaa kale taasi marka waxay dhalisay in uu maalmaha ka dambeeyo maciishadii ee korsii aadayso dadkii marka meel wax dhigan jireen hadda anaga Soomaali hadaynu badankeen xagbad baynu ku jirnaa family-ga 500 $1,000 meel dhigan jiray inay meel wax dhigan waayaan in dadkii ee halkaas cirka ka joogsadeen debt ama deen ugu dambeyn dadkii degnaa guryo waaweyn inay downsizing ee soo yareeyaan xisaamale inta family aan aqaano 4 qol 5 qol degnaan jiray hadda 2 qol ayay ku soo aruureen ama qofkii inuu raadiyo wax uu ku kabo sicir bararkii haye annaga markaas ku caawin karnaa waxaynu ku haynaa global online business oo ah meel kasta adoo jooga ka ganacsanaysid xirfad gooni kaaga baahneen license gooni kaaga baahneen waxaan sameynaa dropship adduunka meel waliba ayaa alaabteena geenaynaa maxaa kale ku haynaa alaab aad iyo aad u tayo badan oo mar dhow ka hadli doono taasina waxay ku ogolaanaysaa fursad aad ku sameeyso dhaqaalaha la dhaho residual income ama dhaqaalaha dhaxalgalka oo soo noqnoqda intaas oo dhan maxay ku kacaysaa wax yar oo kharash ah haye maxaa kaloo ku haynaa freedom maxay ka dhigan tahay xorriyad yes waxaynu ku haynaa ganacsi meel kasta adoo dunida jooga ganacsanaysid aniga waxyaabahan sameeyay waxa waaye 14 bilood inaan soo joogo Turkiga hadda 2 bilood ayaan maqnaa Mareykanka iyo Kenya ayaan ku maqnaa haddana maalina ganacsigeena ma istaagin meel kasta ayaa oo ganacsan kartaa maxaa kale ganacsi aad ka baqaynay in la xiro COVID-19 markuu dhacay dawladda Canada waxay noo aqoonsatay essential service in aynu nahay adeegeena mid laga maarmaan maalina lama xirin saacadna lama xirin maxaa kale waa dhaqaale waa ganacsi ilmahaaga iyo ilmahooda ay qaadan karaan hadda inteena dadka shaqeeya waxa la siiyaa wadamadan wax la dhaho pension laakiin haddaa dhimatid aadan gaarin 65 inta aad adduunka joogtid because retirement-ga markaa pension-ka helayso waa 65 gaartid ka hor haddaa dhimatid ilmahaaga ma qaadanayaan way kula dhimanayaan ganacsigaas saas ma aha ilmahooda ayaa si la wareegayo maxaa kale canshuurta wadamada canshuurta laga bixiyo sanad walba wax laala waxa qarash nagu baxo waa ku buuxinay hadhowda dawladda qarash waxay ku socolinaysaa dhaqaale ay kaaga socolinaysaa maxaa kale waa plan B maxay ka dhigan tahay maanta waxa laga yaabaa inaad shaqaysid inaad iska ladan tahay xaajigaaga ama xaajiyadaada inay shaqayso laakiin anytime ayay wax dhici karaan maxaa kaloo haysataa waayo maasha Allah tabaarakallah yaa waa marka company-gan waa company Canadiana 2005 ayaa la aasaasay waxaan ku leenahay xarunteen ugu weyn Toronto meel ay dhahaan Richmond Hill laakiin waxa kaloo xarun ku leenahay Philippines Thailand China Malaysia Mexico Singapore India mar dhowna maxaa soo socda haduu Ilaahay idmo ugu bishaareynaya dhammaan reer Kenya
xaruntii Kenya yes office-ka ugu horeeyay Africa Kenya ayaa laga furaya maasha Allah maxaa kale dadka qiimeeya ganacsiga waxayna siiyeen A+ waad aragteen ardayga la siiyo A+ waa ardayga ugu shaqada fiican maxaa kale haba yaraatee deena la ku leeyahay male kombanigeena 9 sano ayuu galayaa April shan hadduu Ilaahay idmo hal deena nolokuma laha okay kombaniyaasha annagoo kala oo multi-million dollar kulli deen ayay afka joogaan maxaa kale 2020 waxaynu noqonay boqolka company oo noqday solid maxay ka dhigan tahay saldhiga adag ah aadan ka baqaynin maanta ama hawada ka baxaa maxaa kale 200 oo wadan ayaynu toos ooga howlgalnaa yaa ka dambeeya marka ganacsigeena qof waliba wax waliba qof ayuu Ilaahay sabab ooga dhigay waa kana agaasimaheena waa nin muslina oo Iraaniyaana wadanka Canada 2 sano soo jira ayaa la keenay wuxuu ciyaari jiray dawladda Canada wrestling ama lagdin inta soo bilad ayuu soo qaaday 25 sano ayuu jiray markuu noqday milyankiisa ugu horeysay uu sameeyay 17 milyaneerna uu soo saaray 5 company oo kale uu soo dhisay intuusan midkiisa aas-aasin 2005 waxa lagu maamuusay journalayaasha ugu waaweyn adduunka ay kamid tahay American Business Journal markay noqoto compensation plan sida dhaqaalaha loo sameeyo waa companyyaasha waa ninka expertiga ama ugu xariifsan oo la tashada ayuu kamid yahay Network Marketing Hall of Fame suuqa annaga aynu ku jirno dadka ugu cadcad ayaa lagu maamuusay sidoo kale waa wuxuu qoray book la dhaho Forensic Networker oo ah book talaabo walba uu nabaro annagana afkeena hooyo ayaynu ku bedelnaa maalinta Khamiista oo waxaad ka daawan kartaa Opulence Empire Somali YouTube channelkeena insha Allah wuxuu ka dhisayaa maskaxda waana bilaash maxaa kale okay maxaa kale ku heynaa waxaynu ku heynaa alaab qof walba u baahan yahay qof kasta oo rabo alaabta waxa ugu horeeyo fashion xarago rag iyo dumar wax allaala waxa ku xarago lahaydeen baa idin heynaa maxaa kale oo idin heynaa isqurxin iyo daryeel yaa jeclaan lahaa noloshiisa inta ka hartay inuu ahaado jabiibo right jabiibo ama jobanati everybody ayaa jecel ugu dambeyn caafimaad maxay dhahaan reer galbeedka health is wealth qofka haddii malaayiin uga buuxdo accountkiisa uusan caafimaad haysan waxa ugu fadhida male taas waa caafimaadka diiradda u saarnaa su'aashan waxa dhahaa waa $1 million question su'aasha ugu weyn la weydiiyay waxa waaye kombaniyaashan oo kale waa aragnay ama waa ka mid noqonay maxaa uga duwan tihiin waxyaabo badan waxa ugu horeeya uga duwanna waxa waaye fashion waxaan nahay kombaniga kaliya network marketing ama MLM ku jiro oo fashion soo saaro fashion keenan laba u kala baxaa mid waxa la dhahaa fairy midna waa posh waxa waa ka hadda maanta qabo waa everyday wear maalin kasta wax la xiran karo $10 ilaa $300 ayuu ka dhig ku gadanaysaa fairyna waxa waa luxury line keena oo waxa xirta ilaa iyo 300 oo ah celebrity dadka red carpetka oo caanka ayaa xirtaan soo hadda waxa idin daaraya video yara fashion keena ka hadlay ila daawada واو هوس كسو قرا انتينه ka heshay faashakaas asaas ugu xaragoonaysa ee milyaneerada ay xirtaan dahaba waxay tiri wow exactly ma sha Allah tabarakallah haye oops waxa kaloo idin heynaa alaabtan lagu magac daray badbaadada qoyska ama badbaadada guriga maxay ka dhigan tahay wax allaale waxaynu isticmaalno shaamba ha noqoto daawo cad ha noqoto kareen ha noqoto kulli maxaa ku jira chemical oo aad iyo aad dib idin keenayo annaga marka maxaynu ku takhasusnay markeena marino isku dhaqno aynu cunno kulli inay yihiin wax dabiici ah maxaa kamid ah marka waxaasi saa u jeedaa shaambooyinka ma sha Allah shaambooyinka sadkan waa tii haweenka waa shaambo iyo after shampoo tanna waa midda ragga ma sha Allah oo bilcaada midda ragga ayaa la soo hor saaray midda haweenka maadaama nin rag company iska leeyahay haddana dhara hadda noo soo socdo waan ka iloow fashion hadda waxa intusinayna waxa waaye alaabta
saacadii iyo boorsadii iyo kabihii laakiin dharka ugu horeeya soo socdo waa shaatiyaasha ragga yes su'aalahana la weydiiyey maalin kasta waxa waaye company-gan dumar kaliya maa lagu talagalay no wax kastoo soo baxo midda ragga ugu horeyso so rag iyo dumar way ka ganacsadaan so waa midda ragga waxa waa shaambooyinkeena waxaa ku jeclaa marka waa 2 in 1 korkana waa ku dhaqanaysaa timahana waa ku dhaqanaysaa aflaaqo timo daadanayo timo go'ayo ilaa iyo ciradii ayay madooweysaa maasha allah maxaa kaloo ku jiro kareemadeena wejiga la marsanayo oo jabiibo kaa dhigay intaa nooshahay maasha allah daawada cadiga kareenka korka iyo goojadeena haye alaabteena marka suuqa banaanka waxa yaalo maxay uga duwan tahay laba wax ayaa ku jira maado ee alaabaha adduunka yaala haba yaraatay aysan ku jirin midda ugu horeysa waxa waaye waxa la yiraahdo microsilver maxaa waaye waxa bacteriyada dilo tan ugu fiican kombaniyaal badan waxaysan u isticmaalaan anaga waxaan nahay kombaniga kaliya North America isticmaalo kombaniyaal naga waaweyn way buuxaan maxaysan u isticmaalin aad iyo aad ayay qaali u tahay inaga laakiin ma fiirin lacagta markasta naga soo galayso waxaynu fiirinaa waxaanay ma u tahay faa'iido waana diinteena waxay qabto waxa gadaysid waa inay tahay wax tayo leh ayaa lagu leeyahay haye daawadan cadiga marka hadda ugu horeyso daawooyinka cadiga inuu isticmaalno waxa ku jira wax la dhaho fluoride haddaadan aqoonin waa sun si ku ogaanay daawada cadiga guriga ku taala gadaasheeda akhri maxaa ku qoran intaas in kamid ah haday ku cararto iska xaadiri meesha lagu baaro qofka sunta liqay maanta haddaa sun kuu qoosho ku dhoofoosiya afka gasho laakiin halliqin foosiya ma yeelaysaa of course not waxa afkaaga galay isla markii way kugu cararaysaa so taasi waynu ka saarnay maxaa kaloo la ogaaday haweenka markay uurka leeyihiin ama ilmaha yaryarka ay isticmaalaan wax ay ku jirto fluoride ilmahaas caqligooda inuu ku hooseeyo ilmihii kale so ilmihiina inta yaryihiina la dilayaa adigana inta aweynta ayaa la dilaya because laba goorba kulligeen sunta waa laqaynaa markaa ka saarnay maxaan gelina microsilver maxaa kale waxaan haysanaa teeth whitening ilkahana way cadeynaysaa maxaa kaloo ku jiro waxaa ku jiro long lasting protection in ilaa iyo subaxi markaa cadeetid ilaa iyo habeenkii aad tahay fresh waagi hore 3 jeer maalinta cadeyn jira hadda hal mar maalintii oo dhan fresh ahay haba yaraatee ma dareemaa ilkayga culays iyo inay u baahan yihiin in la brush gareeyo maxaa kaloo idiin haynaa alcohol free spraygan maasha allah tabaaraka allah wuxuu soo baxay markay dhacday covid-19 waad aragtay markasta maxaa la dhahaye gacmihiina dhaqaa bahasha la mariyo hand sanitizerka meel kasta mariya hebelow laakiin taasi 2 daqiiqo kaliya ayay bacteria dilaysaa haddana korkeena waxay u keentay intaas soo damage waxa soo saara mid aysan ku jirin alcoholki haddana meesha lagu buufiyo waxa lagu soo baaray Germany 14 maalmood waxa laga waayaa lagu leeyahay bacteria subhanallah maxaa kaloo idin heynaa kareenkan korka la marsado wajigana waa la mariyaa aad iyo aad u fiican hadda Nairobi markaan joogo waxaan gadno waxa ugu badan ayuu ahaa maasha allah qof kasta ka helay abaayo waxa jirtay intaan ay kulanay labadan dhan way guduudnaayeen way isxoqayse waa u mariyay 10 daqiiqo anagoo fadhino isla markaa waxay tiri abaayo horta 10 daqiiqo inta la gaaray hal daqiiqo kadib waxay tiri holaci inuu dagaa moodaa 10 daqiiqo kadibna sawir kala ka qaaday before and after yani waa yaabaysa abaayada soo wakaatay soo korkana waa la mariyaa gacmaha iyo korka kale wajigana waa la marsadaa asagana aad iyo aad u fiican yahay maxaa kaloo idin haynaa midkani oo ah night serum keena maasha allah kareemadeena wajiga habeenka lagu seexdo haaraha jaamaha kala wajiga markan oo kala duwan nabraha waxa soo dhan la dagaalayo maasha allah tabaaraka allah maxaa kaloo idin haynaa maadada kale oo alaabteena ku jirto haba yaraatee adduunka meel kale aad ka heleenin waa maadadan la dhaho Norwegian spruce tree waa geed hadaa geliso Google-ka research sameeyo markaas waxaan kula dhahaa afkayga kaliya hadaawanina adinkana baaritaan sameeyo Google geliya 20 sano ayaa la baarayay in allaale inta khubaro scientistiga oo ku sugan Europe ayaa baaraysay geedkan waxa la ogaaday 3 wax inuu geedaha dhan uga dheeriyahay number 1 inuu haysto waxa la yiraahdo lignanska ama antioxidantiga ugu badan 2 inuu yahay anti-inflammatory caabuqa infectionka iyo bararka inuu la dagaalo 3 antimicrobial bacteriyada inuu laayo 3daas maada idin sheegay waa inta wax allaale waxa cudur adduunka maanta ka dhaco sabab u noqday Soomaalida markay nala kaftamayaan waxay dhahaan oo sharoobadii ahayd sheekhul kulli laakiin cilmiga ka dambeeya ayaysan ogeyn maadaama ay la dagaalaysa intaasoo waxa caabuq iyo infection iyo wasakhdii waa intee ka dhalinayso cudur tii ilaahay waa teedi laakiin qofkii isticmaalo waxa waa intaasoo cudura insha Allah waa ka badbaadaysa walaal hadda waxa noo soo socota mid kale oo dhaho phytoclinical oo maasha Allah tabaaraka Allah labadooda qofkii isku qaato almost waxa noqonaysa waxa ay dhahaan bulletproof oo kale yani qof
aad iyo aad caafimaad u qabo insha allah. Alright, maxaa kaloo waa kana marka alaabteennii oo dhan hadday noqoto wixii microslipper ku jira bakteeriyada dilaayay, hadday noqoto caafimaadkii, hadday noqoto shaambooyinkii, hadday noqoto isqurxintii, intaba waa idiin heen. Okay, excuse me. haye su-aasha ugu weyn waa kana marka maanta laga yaabo inaa isweydiinaysid sababtaa maanta ku dooran lahaa. Okay, abay Fawziya Cumar waxay leedahay codkaaga wuu gaabtay, ma mid horaa mise waa hadda? codkayga see waaye? Okay, adiga dhankaaga amuu yahay Fawziya, markaabku hadduu line kuu soo galo waa dhankaaga u malaynaa, intiina kale ii soo qora haddaa fine tahay insha allah. sababta ku dooranaysa company-ga inaa maanta ka mid noqotay maxaa waaye? Number 1 waa technology company. maxay ka dhigan tahay? emailka kuu fureyno maanta, website-ka kuu fureyno, $3 milyan anaga nooga baxday, adna bilaashaa ku helaysaa. maxaa kale? alaabteena oo dhan waynu soo saaranaa. hoos ku soo qora markay noqoto online-ka company-ga ugu weyn uu qof walba ka adeegto oo number 1 maxaa waaye? company-ga ugu weyn online-ka maanta aynu kulligeen ka adeegana maxaa waaye? dabcan waa Amazon. Yes, su-aasha idiha waxa waa Amazon wax ma soo saartaa? No. Yes, Soomaali waxay tiraahdaa biyo sacbadaada ayaa looga dhargaa. Imagine waxayna annagaa soo saarano, innagaana suuqgeyno. qof bila-aadana haba yaraatee aynu u baahannahay ma laha. haye so Amazon waa kasii fiicannahay, keliya suuqay nooga horreeyeen. maxaa kale? 200 waddan ayaynu toos u geynaa alaabta. bal fiiri meeshani, hal company-a furanee, hal email-a furanee, haddana 5 suuq ayaa ka ganacsanaysaa. fashion-kii, isqurxintii, caafimaadkii, daryeelkii iyo daryeelkii afkaaga, intaba waana hal company. maxaa kale? adduunka cusub oo waxaa lagu leeyahay 5 sano ilaa 10 sano dambe soo bixi doono, waxaa loo bixiyay 3.0. okay, waa hadda badankeen waxaynu maqalnaa cryptocurrency, bitcoin heblaayo, right? waxaas waa adduunka cusub. 10 sano kadib waxaa lagu leeyahay bangina ma jiri doono, lacag la tiriyana ma jiri doonto. hadda already Kenya ka imaaday, maalin kasta M-Pesa isticmaalaya, lacagta Kenya gacanteeda ma saarin. so wax kasta waxay isku bedelayaan digital. annaga marka waxaa noqonay company-ga ugu horreeyay oo intaa gashid website-keena wax allaala wuxuu doona ka gadanayo, lacag kaasha looga baahneen, wuxuu ku bixinayaa crypto. so crypto waddan kalaa ka keeni kartaa meel kale, ama annaga teennaa iibsan kartaa, la dhaho exit designer token, hadhowta waxaa doonta ayaa ku adeeganaysaa. suuqan wuxuu ku fadhiyaa $3 trillion. imagine maanta haddaa ka mid noqoto suuq $3 trillion ku fadhiyo, hadhowdii 5 sano 10 sano kadib markay adduunka dhan soo galaan, noloshaada xaggee bay gaari kartaa? lagama sheekeyn karo. maasha allah, tabaaraka allah. haye sideeba u shaqaysaa ganacsigeena? balsay simple u tahay, fiiriya. aad iyo aad u fududahay ganacsigan sida loo sameeyo. keliya maxaa lagaaga baahan yahay? website-kaaga iyo alaabtaada ayaa xaysiinaysaa. dadka waxay galayaan website-kii, alaabta ayay dalbanayaan. company-gii Ferex iyo DHL saas oo la duulayso ayaa u geenayso. adiga maxaa la hoyanaysaa? faa'iidadii. can you imagine? so number 1 keliya sameynaysaa adiga, inta kale asagaa is sameynayo. maasha allah, tabaaraka allah. okay, haye maxay tahay marka faa'iidada ay leedahay? annaga habka aan u shaqeyno, waxaa ku bilaabaysa aad iyo aad ayay u yartahay. ganacsi maanta qof markuu bilaabayo ugu yaraan 5,000, 10,000, 20,000 ayaa looga baahan yahay. kan marka aragta intaa ku bilaabaysaan waaba yaabo doontaa se u yartahay. maxaa kale? alaab badan oo lagaaga baahan yahay inaad keentid oo soo iibsatid ma jirto. maxaa kale? kama walwalaysa shipping-kii, dadkii alaabta u geynaya kama walwalayso, company-ga ayaa take gargareynaya. maxaa kale? dhaqdhaqaaqa bil walba maxaa lagaaga baahan yahay? dhaqdhaqaaqa yar inaad samayso, mar dhow ka hadli doono. ugu dambeyn website-ka kuu fureyna, email-ka waxaa ku jiro 100 iyo 10,000 alaab oo meel kasta, meel allaala meeshaad doontid aad ka tuuri kartid. haye maxaa kale? waa tanaa marka smart buy. maxaa waaye? soo aad aragteen qof walba oo maanta ganacsadaa u tag, waxaa weydiisaa bil walba intaa la gaarin faa'iidadaada maxaa kaa baxo kharash. qof wuxuu ku leeyahay waxa iga baxo kiradii, qof wuxuu ku leeyahay waxa iga baxo delivery, qof waxa ka baxo alaabtii, qof waxa ka baxo mushaarkii dadka u shaqeynaya, qof waxbaa ka baxo, right? kan annaga maxaa ku dhahaynaa? bil waliba daawada cadiga adaa u baahan, kareemada adaa u baahan, shaambooyinka adaa u baahan. intaa bannaan ka soo gadan laheyd ka iibso dukaankaaga. markaa ka iibsatid, hadhowta maxaa dhacaayo? discountigaagii 10% ayaa kugu biiraysa extra ah. maxaa kaloo kuu ogolaanayso? faa'iidada soo aruurta maanta laga bilaabo 8% ayaa ka heli doonta hadduu ilaahay idmo. meeshaana fiiriya marka sidee dhaqaalaa looga sameeyaa? imise qof ayaa ka heshay private jetkan? yes, ilaa heer waxaa gaari kartaa dayuurada adiga keliya leedahay raaci karti. maasha allah. haye sidee buu u shaqeeyaa? mar allaale markii
qof walaal ah aan la wadaagto fursadaada oo qofka ku dhaho dahabo sidaadoo kale waxaan rabaa inaan gurigeyga anoo joogo ganacsado anoo ciyaalkayga korsanayo anigoo baatigayga qaba anoo macawisteeda qabaa raba inaan shaqaysto qof kasta aad la wadaagta ganacsiga oo soo gala oo ku soo gala lifestyle advisor plus oo mar dhow ka hadli doono adiga maxaa luu company ku soo dirayaa $350 oo ah dilaal yes ka soo qaad bishaan waxaa la wadaagtay 4 qof okay 4 qof oo mid $350 halkaa maxaa kaaga soo baxay $1,400 $1,400 haddaa bil kasta helaysa hadda maanta extra ah wax ma kaa bedelaysaa of course markaa Kenya joogada waxay ku dhaheen dadka mushaarka qaata oo ilaa iyo bangiga ka shaqeeyo jaakatinka xirsoos dhihaysa khatar 400-500 ayay bishii sameeyaan $1,400 waa 3 jibaar 4 jibaar waxay sameynayeen so of course meel way ku buuxineen meeshaana fiiri bonus waxaa jira laho various bonus qofka kali uu ka faa'iideysan karo waxa waaye ilaa iyo qof ku soo gala lifestyle advisor plus ka hadli doono aad sameyn karta ilaa iyo 50,000 bishii yes oo extra ah aysan ku jirin wixii kale maxaa kale meesha ugu sareysa dhaqaalaha ugu badan company-geena aad sameyn karta maxaa waaye asbuuci ilaa iyo $60,000 sanadkii waa 3 milyan maasha allah maxaa kale 10% discount saa idin sheeg ayaa helaysaa markaa bil walba dukaankaaga dhexdiisa uga adeegato ugu yaraan 150 ilaa 250 maxaa kale markab yes hadduu ilaahay idmo maarso 9keeda ilaa iyo 12 maarso shaashadaheena hadda aragtid waxa ka daawan doontaa inaga ayuu markab saaran yes sanad walba darajada qofka markuu yahay lifestyle director 2 waxa company ku diraya markab bilaash ah so sanadka hadduu ilaahay idmo waxaynu ka baxeenaa Singapore Malaysia iyo Thailand yes asbuuc dhan ayaa halka ku soo raaxaysanayna hadda sanadka soo socdo meel ku qoran hadduu ilaahay idmo wa ilaa ina adigana markabka saaran tahay maxaa kale imagine bil kasta haddaa sameynaysa ilaa iyo $4,000 oo aad ku helayso gaari bilaash ah maasha allah maxaa kale bonus hadiyad kale waxaa jirta la dhaho MGRS 200 oo wadayna ku howlgalno bil waliba faa'iidada soo aruurto company-geena kulli asaga ma qaato 1 share 2 share ilaa 3 share ayaa qaadan kartaa iyo intaasoo kale oo faa'iidooyin uu company-geena soo saaro oo hadeertaan aynu haddaa u fariisano waaga nagu baryaayo haye meeshaanba ila fiiriya emailkaaga markaa furata adiga ayaa iskale laakiin kaliya kama shaqeynaysid maxay ka dhigan tahay waxaan kuu furaynaa qol la dhaho my 5 support aniga iyo 5 qof leaderyaasha ugu sareeya ku jiraan oo kula shaqeynayaan waagii bariyay gobolkii dhac su'aalahaaga soo dhigaysa halkaas ayaa laga hagaaya maxaa kale 7 cisho asbuuci waxaa jira tababar training waa free company-yaal badan inagana la mid waxa lagu leeyahay lacag laga qaadaa dadka inay training ka qaataan bilaash ayaa lagu tababaraya wala caada afkeena hooyo ayaa lagu tababaraya ma dhahaysid af ayaa ciilayo maxaa kale social media intaas waxaynu haysanaa social media hadda waxa inoo soo socdo social media aad iyo aad u fiican oo wax allaale wuxuu company-ga soo dhajiyo automatically aad soo dhajin kartid maxaana la socdo linkiga adiga iska leedahay so company-ga inoo fududeynayo company-ga sameeye waa wadaajine wuxuu ku dhajinayaa linkigaagi dadka halkaas ay ka shopping garaysanayaan soo meesha dhowr qof kaliya arki lahayd dadkii oo dhan hadda arki karo maasha allah haye social media marka dadka waxaan ku dhahaa kulligeen waxaynu ku jirnaa Facebook Instagram Snapchat TikTok su'aashu waxa waaye social media ma ada isticmaalo mise isaga ku isticmaalo haddaa si fiican uga fikirtid waxa soo baxay inuu isagana isticmaalo sababta ay tahay intaas waynu ku jirnaa shilin naga ma soo galo maanta laga bilaabo ayaa bedelaysaan tag anaga social media-heena wax kale ma arkaysa har iyo habeen waxaynu ku xayeysanayna ganacsigeena iyo fursadeena haye halkaan maxaa waaye liidaryaasha adduunka meel kasta joogaan oo diyaar ku ah inay kula shaqeeyaan khasab maaha inay tiimkaaga yihiin inay yihiin isku diin tihiin isku dhaqan tihiin meel kasta aad tagtid waxaa leedahay halkaasaan joogaa yaa ka jooga Opulence Global Family qof ayaa lagu soo dirayaa ha maxaa kale annaga tiimkeena 30 wadan ayaynu joognaa 30 wadan ayaadan cidla ku ahayneen hadda Nairobi markaan joogo xisaabo leh inta abaayooyin ayaa la kulmay oo i soo dhaweeyeen oo wax kasta ii fududeynayeen tiimka Kenyaanka markaan sii tageena waa xasuustaa hoteelka wax kasta way nala qabteen so aad iyo aad yani waxaynu haysanaa wax la dhaho culture-keena ama dhaqankeena ayaa saas ah Opulence Nation ayaynu nahay hal baynu nahay kulligeen oo isla wada shaqeynaysa insha allah okay su'aasha marka waxa waa ifraaxay hadalka wuu batay Soomaaliya waxay hadal badan haan ma buuxsho gabagabada iyo gunaanadkii maanta waxaan rabaa inaan ka mid noqdo ganacsigan yes company-gan maanta rabaa inaan ka mid noqdo booskayga waxaan rabaa maanta inaan qaato sidee uga mid noqon karaa okay 3 nooc ayaa lagu soo galaa company-geena
okay nooca ugu fiican waxa la dhahaa lifestyle advisor plus oo ah package cusub oo naloo soo saaray ma sha Allah 95% ee company-geena joogaan dhaqaale dhab ah hadii aad inaad sameysid waa mid kugu fiican inaad tagtid haye marka noqoto lifestyle advisor plus maxaa helaysaa waxa helaysaa email website caalami ah oo wax allaale waxaan iibina fashion isqurxin daryeel xarago ku jiraan dukaan camiran ayaa furihiisa ku siinayna adiga hadda shilin maada alaamaada soo gadarin yaa ku sharxatid annaga ayaa ku siinayno maxaa kaloo ku heynaa waxaynu ku heynaa dad kula caawinayo ilaa iyo xarunteena waxa inoo jooga walaalo Soomaaliyeed oo mar allaale markaa su'aal qabtid ayaa wici kartid orderkaagi wax walba kula sameeynaayo innagana my5kaaga kula sameeynayaan maxaa kale okay so midda ugu yar waa tana inta aynu gelin midda ugu fiican midda ugu yar waa tana waxa la dhahaa fast start package okay waa $350 Canadian waa iska 300 oo ah lacagta US ta badankii waxa jeceshiin lacagta US ta marka $300 US la baxdid maxaa helaysaa website caalami ah maxaa kaloo helaysaa 20% discount maanta laga bilaabo ayaa ku adeeganaysaa maxaa kale lacagta aad bixisay 350 Canadian 245 ayaa lagu siinaa oo ah shopping credit alaab waxa doonto ku gadanaysa maxaa kale app waxaynu haysanaa in kula talinayo maanta inaad soo download garaysaan waa bilaash oo wareejinaysaa appkaas hadhowtu waxa helaysaa free gift waxa lagu soo dirayaa welcome package aad iyo aad u quruxsan teamkeena markay helaan dadka waa yaabaysa ay soo dhigaan la soo cilmiyeeyay dadka aan la wadaagaysid iyo $10 oo ah bilaash ah oo cryptocurrency-geena midaan waa mid ugu hooseyso dadka badankood ma joogaan saa idin sheegay 95% waxay joogaan mid ugu sareysa lifestyle advisor plus laakiin waxay u fiican tahay midaan qofkii markuu maanta jeebkiisa fiiriyo 300 US kaliya ka go'do sidoo booskiisa u qaato okay intiina kala maxaa sameeynaysan waa tana lifestyle advisor waa midda labaad ayadana ma sha Allah 1300 Canadian ayaa ku soo galaysa waa iska $1 oo lacagta Mareykan ah marka intaas bixisid maxaa helaysaa $910 oo shopping credit waxa doonto ku gadanaysid $100 oo ah cryptocurrency-geena soo lacagta bixis way soo noqotay okay kuna la baxday 910 shopping credit 100 oo ah cryptocurrency-geena website-kaagi iyo waxa wareejinaysaa garaangarta bilaash gift ah helaysaa welcome package ka quruxsanaa wali waa helaysaa 30% discount ayaa ku adeeganaysaa maanta laga bilaabo insha Allah waa tana marka midda ugu fiican idin sheegay 95% ee walaalaha company ku jira ay joogaan waxa la dhahaa lifestyle advisor plus maxaa lagu soo galaa waxa lagu soo galaa okay waa kana waa 1300 Canadian ama 1400 lacagta US okay ayaa ku soo galaysaa laakiin inta kaaga soo noqonaysa fiiri 3349 almost laba jibaar inta ka baxday ayaa kugu soo noqonayso maxaa marka helaysaa lacagta aad la baxday $910 waxa lagu siinaa shopping credit maxaa kaloo lagu siinayaa $100 oo ah cryptocurrency maxaa kaloo lagu siinayaa website-ka caalamiga maxaa kale wow waa waxay package-kan u fiican tahay $100 oo alaab ah fashion-keena oo bilaash wala caada fashion-ka $100 ku jiro bishii November ah xasuustaa promotion haysan ayaa company-ga soo saaray waxa u badan tahay ferry-na maxaa waaye alaabta aad arkayseen Hollywood-ka ay xirtaan bilaash $100 oo bilaash alaab ah ayaa lagu siinayaa midaan bonuskan waxay ku ogolaanaysaa package-kan aan ka wadaa in aad qarka u saaran tahay inaad sameysid bonuska idin sheegaaye oo la dhaho variance bonus asagana cusub ilaa $50,000 aad sameyn karta bil walba ma sha Allah meeshaan fiiri tii hore lifestyle advisor 30% kaliya ah ayaa discount-gaaga kan maxaa waaye 40% waa discount-ga aniga haysto 5 sano aan company ku jira discount-ga ugu sareyso adoo cusub oo maanta soo gal caawa soo galay ayaa leedahay ma sha Allah tabarakallah maxaa kale garaangarta markaa wareejisid free gift ayaa la hooyanaysaa maxaa kale welcome package-ki wixii aad ku xiisan lahayd ganacsigaaga ayaa lagu soo dirayaa ma sha Allah tabarakallah all right lacagta marka $910 oo lagu siinayo shopping credit labadan package mid aad ku qaadan kartaa midaan ayaa fiican maadaama ay isku jir ay tahay laakiin lacagtaas waa halfkeed 910 oo dhan intaan ma aha halfkeeda ku gadanay halfka kalena alaab kale ayaa ku gadanaysaa soo lacagtaada way soo noqotay lafahaagi iyo faa'iidaada labadaba way soo noqdeen haye waa kana marka variance bonuska idin sheegay hadiyada bilaashka ah waa tana sidee u shaqaysaa mar allaale markii teamkaaga uu ku soo biiro qof lifestyle advisor plus waxaa sameyn kartaa ilaa iyo $250 okay oo extra ah
oo bilaash 15 bisha ayuu ku soo dhacayaa qofka marka ah lifestyle director 1 marka noqoto lifestyle advisor plus waxa ugu horeeya ka shaqeynaysa waxa waaye inaad noqoto lifestyle director 1 sidii hadiyadan bilaashka wax ooga heshid saa u jeedid 10 kun sameyn kartaa 15 kun 25 kun ilaa iyo 50 kun oo bilaash ayaa bil kasta qaadan kartaa ma sha Allah tabarakallah maxaa kale ina waxa noqon kartaa kale macmiil okay macmiil badan waynu haysanaa macmiilka waxa waaye website bilaash lagu furaaya mar allaale marka naga adeegato waxa ku aruuraayo wax la dhaho opulence points ka maxaa ku gadanay fashion hada siladaan oo kale waa 6,000 oo opulence points lacag kama bixin waa ku gadanaysaa waxa iska bixinaysaa on shipping ama delivery sidoo kale 3 bilood oo isku xigto marka naga adeegato anaga shay gaarayso ugu yaraan $75 bisha afraad laga bilaabo waxa ku siineenaa 10% discount ma sha Allah maxaa kale mar allaale marka asxaabtaada noo soo dirtid yes asxaabtaada marka noo soo dirtid maxaa ku siineenaa waxa ku siineenaa 10% wax allaale waxay ku adeegteen oo shopping credit hadhowteen alaab bilaash ah u heshid soo su'aasha u dambaysa idin haya waa tana what if you can have it all imagine wax allaale waxa jeclaan lahayd wax allaale waxa ku riyootid haday noqoto guri haday noqoto markab haday noqoto xajina aadid waxay doonto ha noqoto masaajid yaal inaad dhis adiga yaqaano wax allaale waxa riyadaada maanta imagine hadaa heli karto kulli kaliya maxaa lagaaga baahan yahay inaad wax ku darsatid company aadan ka baqaynin ama laga xiraa inaad wax ku darsatid company aadan ka baqaynin orderkayga ma helaya asaga ayaa take gargareynaayo company aadan ka baqaynin maadaama sicir bararka maalmaha ka dambayso uu kor aadayo siiba 2023 waxa lagu leeyahay cariiri dhaafay ayuu adduunka galaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala adduunka nuguma cariiriye aakhiraba laakiin waa reality-ga kama baqaysi marka ama alaabti laba jibaar iyo shan jibaar ay tagtaa company-geena ayaa dhabarka u dhigto maxaa kaloo aadan ka baqaynin inventory-gi alaabta ama go'daan annaga soo saarana alaabteena maxaa kale company xal u ah meel kasta aad dunida joogtid inuusan ganacsigaaga mar kasta uusan saameynin oo aad ka shaqaysan kartid company soo saarayo maalmaha ka dambayso alaab la xiriirto pandemiga ama covid-19 soo u dhacay maxaa kale midda ugu muhiimsan aniga waxaan bartay markayga hore dhaqaalaha marka jaamacadda dhiganaayay waxyaabaha nagula taliyay professor-yaasheena maxay ahayd markaad company wax ku darsanaysaan laba mid ka fiiriya mid ugu horeysa waxa waaye company-gan ma yahay company kobcaayo har iyo habeen alaab cusub ayaa soo baxayso hadda January bishii la soo dhaafay New Year webinar ayaynu haysanay inta alaab soo socota haday noqoto phytoclinical oo ah Matanti Fountain of Life haday noqoto fashion keena haday noqoto collagen haday noqoto shumacyaal wax noo soo socdo waa yaabe so yes every day we are growing maxaa kale expansion ma yahay company faafayo xafiisyaasha hadaa idin soo tirinaaye Malaysia iyo Thailand iyo India iyo kulli goorma la furay covid-19 kadib company-yaasha dhan waa la xirooyaa hadda ayaan dhaweyd waxa la ii sheegay shalay ahayd la ii sheegay company $1 billion ku fadhiyo oo anagoo kale u shaqeeyay in la iibsaday yes company-yaasha dhan shaqadii waxay bixin waayeen deentoodii laakiin annagana inta company ay la wareegnay waa yaabaysaa haddana soo socoto Kenya Indonesia iyo South Korea haduu ilaahay dimo soo labadiiba la yiri fiiriya waynu haysanaa soo maanta haduu jiro company wax lagu darsado 100% number 1 ayaynu ka nahay inaga ma sha Allah tabarakallah soo hadaa jeclaan lahayd adiga qoyskaaga inaa vacation aadaan fasax aadaan hadaa jeclaan lahayd markabkaas inaa nagu raaxaysato haduu ilaahay laga bilaabo maarsadaan hadaa jeclaan lahayd inaa hesho personal development maxay ka dhigan tahay shakhsinimadaada inaad kobcisid waxa laga yaabaa isdhehaysid ifraaxsi u hadlaysa ma hadli karo waa ku tababareynaa yes xisaamada teamkeena inta walaal ku jiro oo ku dhahayo laba qof wax uma sheegi karin maantana aniga iga life badan yihiin aniga ayay iga sharxad badan yihiin waxaas maxaa waaye waa lagu tababarayaa lacagta marna waa la helaa marna waa la waayaa laakiin midda weliga laga qaadi karo ma taqaanaa waa midani shakhsinimadaada markaa dhisantid haba yaraatay cid ka qaadi kar male subhanallah hadaa jeclaan lahayd financial freedom xoriyad dhaqaale meel allaala meesha doonta aad tagtid farta doonta aad qortid waa ku heynaa haye hadii hadaa jeclaan lahayd caafimaad ina caafimaad ku noolaatid hadii adiga qofkaas aad tahay nagala soo qayb qaado waxa la gaaro waqtigi aad ku noolaan lahayd nolosha opulent maxay ka dhigan tahay nolosha ugu fiican aadna heli lahayd xoriyad dhaqaale intaas waxay ku eg tahay powerpoint-gayga insha Allah waa inoo joojinayaa recording-ka dhamaan walaalaha naga daawanaya YouTube-ka insha Allah marka daawado qof ku soo dir ayaa dib ugu noqonaysa oo weydiinaysa waxa laala waxa su'aalka dhex guuxay insha Allah okay